waddanka Jarmalka gudoomiyaha golaha dhexe waddanka Germany mudane Cabdiraxmaan Cabdilaahi iyo wariyaheena Mustafa Future oo halka inuu geeyay sidoo barnaamijkan inagala qayb galay ergooyinkeena ka yimid waddanka Faransiiska oo aan filayo inay baabuur soo saaray yihiin oo inaga soo habsaameen iyana waxaan leeyahay soo dhawaada idinka ay iga sheegi doonaa hadhow maanta maqlaydeen intaa waxay raaca waxaan halkan iyana uga mahad celinayaa wakiilka wadamada habayaha guud ee isku xidhan labada wadan ee Holland iyo Belgium Marwo Xaliima Habdi Obsiye oo leeyahay soo dhawaada halkan waxay nala fadhidaa oo ay ahayd inay xaggan inoo soo fadhiisato waxa madashay nala joogtaa oo ay ahayd inay madashan shirgudoonka xagga hore safka hore soo fadhiisato walaasheen Khadra Kaliil oo ka socota ururada bulshada rayidka ah ee ka jira waddanka Soomaaliland kuwa ugu activesan waxaan leenahay Khadra soo dhaw inta markaan martida ku soo koobo dhammaan guddiga fulinta ee Finland golihiisa dhexe taageerayaasha xisbiga kulmiye gudoomiyaha laanta Turku iyo guddigiisa xildhibaan Faisal Yusuf Abdi halka dambeysna isku qarinaya oo ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Faanta dhammaantiin anoonidi kala qaadin mudanayaal iyo marwooyin waad mahadsantii ku mahadsantii inaad shirka nagala soo qayb gashaan ku soo dhawaada waad ka mahadcelina soo jiibtay markaan intaa salaan iyo mahadnaq ku dhaafo maxaynu isugu nibi shirkani muxuu daarnaa ujeedadiisu maxay ahayd waa wax kulley laynaga wada sugayo run ahaantii sida ogtihiin xisbiga kulmiye waa xisbiga ugu ballaaran axsaabta ka jirta jamhuuriyadda Soomaaliland waa xisbiga dhalay xukuumadda hadda jirta waa xisbi ku abtirsada halgan waa xisbi ku abtirsada nanqartii iyo raggii dalka ugu leex jeclada badnaa iyo mujaahidiintii u soo halgamay وحسب وأساسيس لها مدحوينه نمانت نلسل منديلها سوماليلاند نلسل منديلها لبعض أفريقيا مدنة أحمد محمود سيلاي هذه شلي أينو هيلني هذه حسب جينا أينو وقتها كم تشيرني هذه أينو بللا قلني هذه أينو كهرشينه هذا عد كنسيسان وحاسن قبل دونا وحن آمن سنهي أينو وفاني إنه أينو دمان تنكو وضفانينا وحقبتكي يبلنكي كل مية إن رجلي بقولكي بس عشان إنه فوليي هذا أنا كبدين حزب معارضة منهن أوران ما ينا ما أنت بدرنو معانينا أوران ما ينا لاميدا رجينا كلر أنت إنه قادنا قريها بعو كلر واجي إنه صاري ما إنه وحقبت هل كينو علامة ملاك كقول لهاي إنه جدّت كينو كقولنا يو ودلهم يوم بدو أينو دقنا وأرى تام ودد عرقا والله كيف رسمات لكن كلا ردنا سوق قانون ودلهم يوم كنا وضعنا كقولنا runti halka markaynu marayno waxaynu u baahannahay kulmiye maanta muxuu inaga mudan yahay muxuu inoo keenay maxaa isbeddelay ku yimid inaan istul taagnaydna shalay madaxweyne Axmed Maxamuud Siilaanyo oo mujaahid hayin ah oo gurguurshaaya ayaynu dooranay soo hogaamiyay xisbiga talada dalka soo aynu dhiibanay madaxweynaheenu intuu halka istaagay tashi badan sameeyay wuxuu inoo dooray maanta ninkii uu islahaa qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland halka soo gaarsiin oo ka sii wadi karaya waa gudoomiyaheeni waa mujaahidkeeni dalka xabadaha badan ugu soo dhaceen waa Muuse Biixi Cabdi oo maanta madaxweyne waxaynu Muuse ka doonaynaa wixii la qabtay oo aynu dadka u sheegaynaa 90% haddaynu qabanay ballanqaadkii hore barnaamijkeena xisbiga 10% ka inoo haray waxaynu maanta ugu daraynaa ballanqaad hor leh waxaynu ku daraynaa oo aynu ballan qaadaynaa oo aynu kula dardaarmaynaa Muuse haddaynu qurba jooganahay garoomadii caruurta ku ciyaaraysay dalka markaynu ku noqono inuu inoo sameeyo waxaynu ku dardaaraynaa oo aynu faraynaa inuu dhiiro geliyo aqoonta dhalinyarada jaamacadaha ka soo baxaysa isla markaana shaqo abuur baaxad leh oo u sameeyo waynu ognahay oo dhibka ay nagu hayso aafada shaqo la'aanta dhalinyaradeenna haysata halkayna gaarsiin waa ognahay waxa ku dardaaraynaa inuu fikir
iyo maskax iyo curin cusub la yimaado si aynu uga gudubno caqabadaha shaqo la'aanta waanan ku rajo weynahay inuu noqon doono ninka ku dhacay fuliya insha Allah sidoo madaxweynuhuba hawlo badan oo ka adkaa qaranka u yaala ku dhacay kulley waxa la yiri goor gaaban hadalkeed gaaban marti badan baa joogta oo wadamo kala duwan inooga timid dad badan oo meeqaam iyo ixtiraam inaga mudan baa jooga oo iyaguna hadalka aynu siin doonaa marti baa laynoo yahay kulley hadalka badin mayno wuxuun baan halkaa markay tahay usoo daandegaya ajandihii shirkeena shirkani waa shirkii labaad marka lagu daro shirkii koowaad oo gogol xaadkii ahaa oo ay walaalaheena isu dhanfidiyeen oo ka dhacay 5tii bisha 3aad 2016 magaalada Stockholm ee Sweden shirkani wuxuu daarnaa oo ajandihiisu ahaa 4 qodob oo ayaan ku soo ururinay isbarasho xog wareysi iyo dardargelin wada shaqeynada laamaha xisbiga kulmiye ayaa ka wahay oo sideen u wada shaqeynana haddaanan Faransiis soqoonin haddaanan walaalkay Jarmalka soqoon haddaanan dhageysan wuxuu qabo iyo barnaamijka oo ayaan xisbiga ku hormarin karno isma fahmayno oo kala soconayna waxa qasab noqotay inaan isu nimaadno tala isweydiino afkaarta wareejino isu kordhino wixii waay aragnimo aqoon aan isu dheernahay shirarkii noo socdina kulley go'aamo fiican baa nooga soo baxay qodobka labaad waxa diyaarinta arrimaha dhaqaalaha ee xisbiga iyo kobcinta taageerayaasha gudoomiyaha xisbigeenu wuxuu ina soo faray fariin uu inoogu soo dhiibay xildhibaan maxamed cali xirsi iyo mas'uuliyiinta la socotay waxaan halkan ka sheegayaa oo ka cadeynaya inuu ballanqaad taladii uu gudoomiyuhu inoo soo jeediyey iyo codsigii ay xaruntu ina soo weydiisay iyo go'aankii ay laynaga filayba uu fulay dhammaan barnaamijkii oo xildhibaanku inoo siday oo uu inoo keenay waxaan idinku bishaarinayaa 80% fulay waa qaadanay oo baa ku qaadanay waa fulinaynaa insha Allah ilaahayna nagu asturo waxaan halkan eray kaftana uga diraya walaalahayga reer UK oo iyagu goobtan ka maqan oo isnidi malaha culays badan baa saaran oo laamo badan baa gudaheeda ka jireen bal iyaguna waxaan u leenahay reer UK waa nala kaftay badhoodo waxay yiraahdeen Yurubta sheegaysaaba xildhibaan magaalada Birmingham inta la yiraahdo Yurubta kalaba barnaamijka ku nool ka badan waxaan u leenahay ee noqon hadale ficilkeedii hal idinka arko oo 50% iyo 50% shaqo kasta oo qaybsanahay soo diyaar garoob hadda tirada ay tayada haysan hadalka waan badiyay raalli hal iga ahaado dhammaantiin mar labaad iyo mar saddexaad soo dhawaada waan idinka mahad celinaynaa ka soo qaybgalka nagala soo qayb gasheen martidan qiimaha badan waa u mahad celinaynaa waa ku soo dhaweynaynaa dalka Finland waxaan rajaynaynaa shirar badan oo kuwan ka population badan ka balaaran inaynu qaban doonayno insha Allah oo qorsheysan doono warburtiyeedkana soo bixi doonana ay ku jirto shirkan shirka ku xiga wadankaynu ku qaban doono goortaynu qaban doono hal mid baa saxaya waxaan saxayaa shirkani muu ahayn maanta shir loogu baaqayay taageerayaasha xisbiga kulmiye xildhibaan iyo la taliye madaxweyne haddaanu isnidhaahno soo kiciya kulmiye Finland hodheel qaada maanan helay marmarinaya haddaa isleedihiin Cabdiraxmaan Cirra ka soo jeedo degan oo gudoomiyihii wadani oo musharaxa haddaa isleedihiin Faysal Cali Waraabe ayaa waxaanta dhigto dhowr ilaa 10 sanadood deganaa oo meeshu waa meel macaarid waxaan idinku bishaareynaynaa inuu xisbiga koowaad ee ka jira uu yahay kulmiye aad iyo aad baa u mahadsantihiin waa isku soo laaban doonaa marar badan oo kale intaasan hadalka ku soo koobaya iyo mahadnaqan oo ka wakiila taageerayaashayda guddigayga fulinta iyo golahayga dhexeba aad iyo aad baa u mahadsantihiin dhammaantiin wassalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh